Salaamu calaykum. Ku soo dhowaada xinjiraha jacaylka. Haddii ay tahay markii koowaad aadna soo booqatay, waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saartid, muuqaalkanna aad like garaysid, lana wadaagta asxaabtaada. Mahadsanid. Maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa ereyo jacayl oo ku habboon lamaanaha isjecel. Daawasho wanaagsan. Hal qoraal oo dhinacaaga ka socda wuxuu bedeli karaa jihadii aan markii hore ku socday, wuxuuna ii jihayn karaa halka ay farxaddaadu taallo. Waxaan jeclahay inaan ku arko adiga oo faraxsan. Waxa ugu qurux badan ee aan arkaana waa dhoola caddayntaada. Keliya waxaan arkay ilbiriqsiga, laakiin ogow inaan mar walba aragtidaada iftiinsado, weliba nuurka noloshayda mar walba ay tahay. Waxaan kuu jeclahay sidii anigoo weligayba qof adiga kaa horreeya aanan jeclaanin, xitaa aanan u dhowaanin adiga hortaa. Arrinta dhankayga ugu culus ee aan weligay ku fikiri doonin waxay tahay ilowadaada, mana ka dhici karto middaasi. Waxaa tahay noloshayda, wehelkayga, wadnahayga, qalbigayga, maskaxdayda, niyaddii aan kugu soo xasuusanayay. Jacaylkaan kuu qabo ma ahan mid dhammaan doonaa weligiis. Wuu iga nasiib badan yahay qof maalin kasta adiga ku arkaa, kula hadlaa, fursadaha uu helaa inuu dhoola caddayntaada dad aadka u quruxda badan ay indhihiisa arkaan. Qofna ma beddeli karo jacaylka aan adiga kuu qabo. Ogowna waa ballan iyo axdi, marnaba kuma cidlayn doono oo waxaad i bartay dhadhanka jacaylka uu leeyahay. Waxaan dareemay inaad tahay qofkaan dunidan ka raadinayay muddo badan. Waxaad i bartay dhadhanka ay leedahay noloshu. Waxaad i siisay farxad aan la qiyaasi karin. Waxaad dhammaystirtay riyadaydii qabyada ahayd. Soo ma ogid inaad tahay dhammaystirkii noloshayda, riyadii mustaqbalkayga, rajadii naftayda, farxaddii qalbigayga, aragtidii indhahayga, dareenkii wadnahayga. Runtii waxaad tahay ruuxaan doortay aniga, dareenkayga iyo qalbigayga u raacay. Jawigu waa mid aad u qurux badan, jacaylkana waa dareen aad u macaan. La'aantaada noloshu dhadhan ma lahan, mana ahan mid dhammaystiran. Dhoola caddayntaadu waxay ii tahay wehel. Waxaa tahay dareenkayga, ma tihid dhiiggayga, balse waan kuu damqadaa, mana tihid wadnahayga. Laakiin waxaan diyaar u ahay inaan xanuun walba kula qaybsado. Uma malaynayo inuu jiro ruuxaan ka doorsanayo intii daa'in uumay, adigana kaa doortay. Mana jirto meel aan kaaga dheeraado, maxaa yeelay dareenkayga iyo daryeelkaygaba xaggaaga ayay jiraan. Dadku waxay dhahaan jacaylku sabab la'aan ayuu qalbigaada ku beermaa. Haa, waa run, sababtoo ah sabab la'aan ayaad qalbigayga degtay, waayo aad baa ugu farxay markaad ku soo biirtay noloshayda. Waxaad iga dhigtay qof wax badan ka fahmi kara wejiyada ay noloshu leedahay. Markii aan adiga ku arkay ayaan arkay farxad. Markii aad adiga ii soo dhowaatay ayay siyaaday farxaddaydu. Ma aqaano waxaan ku dhaho, mana aqaano waxaan kugu mahadceliyo, balse waxaad tahay adduunkayga oo dhan. Waxaan ogahay inaan helay ruux ruuxayda u ah nolol, oo weliba si waali ah aan ugu jeclaaday. Maalin walba dumar aad u qurux badan waan la kulmaa, laakiin weligay maan helin qof adoo kaleeto ah. Waa run in dunida dumar ka buuxaan, balse ma jiro qof kula mid ah ama aan ku barbardhigi karo. Ma aqaan sababta, balse waan ku jeclahay. Ma jecli inaan qof la wadaago waxyaabaha ii gaarka ah, sababtoo ah waxaan doonayaa inaan adiga keliya kula wadaago dhammaan xasuusaha farxaddayda. Maxaa yeelay ma aqaan sababta, balse waan ku jeclahay. Ma ihi qof daciif ah, ka caliso. Adiga ah awooddayda inta aad adiga tahay jacaylkayga. Ma jiro
wax dunida dusheeda yaallo oo i ruxi kara ama i gilgili kara waan ku jeclahay. Hal qoraal oo dhinacaaga ka socda wuxuu beddeli karaa jihadii aan markii hore ku socday, wuxuuna ii jihayn karaa halka ay farxaddaadu taallo. Waxaan jeclahay inaan ku arko adiga oo faraxsan. Waxa ugu qurux badan ee aan arkaana waa dhoola caddayntaada. Kaliya waxaan arkay ilbiriqsiga, laakiin ogow inaan mar walba aragtidaada iftiinsado, weliba nuurka noloshayda mar walba ay tahay. Waxaan kuu jeclahay sidii anigoo weligayba qof adiga kaa horreeya aanan jeclaanin, xitaa aanan u dhowaanin adiga hortaa. Arrinta dhankayga ugu culus ee aan weligay ku fikiri doonin waxay tahay ilowadaada, mana ka dhici karto middaasi. Waxaa tahay noloshayda, wehelkayga, wadnahayga, qalbigayga, maskaxdayda, niyaddii aan kugu soo xasuusanayay. Jacaylkaan kuu qabo ma ahan mid dhammaan doona weligiis. Wuu iga nasiib badan yahay qof maalin kasta adiga ku arkaa, kula hadlaa, fursadaha uu helaa inuu dhoola caddayntaada dad aadka u quruxda badan ay indhihiisa arkaan. Qofna ma beddeli karo jacaylka aan adiga kuu qabo. Ogowna waa ballan iyo axdi, marnaba kuma cidlayn doono oo waxaad i bartay dhadhanka jacaylka uu leeyahay. Waxaan dareemay inaad tahay qofkaan dunidan ka raadinayay muddo badan. Waxaad i bartay dhadhanka ay leedahay noloshu. Waxaad i siisay farxad aan la qiyaasi karin. Waxaad dhammaystirtay riyadaydii qabyada ahayd. Soo ma ogid inaad tahay dhammaystirkii noloshayda, riyadii mustaqbalkayga, rajadii naftayda, farxaddii qalbigayga, aragtidii indhahayga, dareenkii wadnahayga. Runtii waxaad tahay ruuxaan doortay aniga, dareenkayga iyo qalbigayga u raacay. Jawigu waa mid aad u qurux badan, jacaylkana waa dareen aad u macaan. La'aantaada noloshu dhadhan ma lahan, mana ahan mid dhammaystiran. Dhoola caddayntaadu waxay ii tahay wehel. Waxaa tahay dareenkayga, ma tihid dhiiggayga, balse waan kuu damqadaa, mana tihid wadnahayga. Laakiin waxaan diyaar u ahay inaan xanuun walba kula qaybsado. Uma malaynayo inuu jiro ruuxaan ka doorsanayo intii daa'in uumay, adigana kaa doortay. Mana jirto meel aan kaaga dheeraado, maxaa yeelay dareenkayga iyo daryeelkaygaba xaggaaga ayay jiraan. Dadku waxay dhahaan jacaylku sabab la'aan ayuu qalbigaada ku beermaa. Haa, waa run, sababtoo ah sabab la'aan ayaad qalbigayga degtay, waayo aad baan ugu farxay markaad ku soo biirtay noloshayda. Waxaad iga dhigtay qof wax badan ka fahmi kara wejiyada ay noloshu leedahay. Markii aan adiga ku arkay ayaan arkay farxad. Markii aad adiga ii soo dhowaatay ayay siyaaday farxaddaydu. Ma aqaano waxaan ku dhaho, mana aqaano waxaan kugu mahadceliyo, balse waxaad tahay adduunkayga oo dhan. Waxaan ogahay inaan helay ruux ruuxayda u ah nolol, oo weliba si waali ah aan ugu jeclaaday. Maalin walba dumar aad u qurux badan waan la kulmaa, laakiin weligay maan helin qof adoo kaleeto ah. Waa run in dunida dumar ka buuxaan, balse ma jiro qof kula mid ah ama aan ku barbardhigi karo. Ma aqaan sababta, balse waan ku jeclahay. Ma jecli inaan qof la wadaago waxyaabaha ii gaarka ah, sababtoo ah waxaan doonayaa inaan adiga keliya kula wadaago dhammaan xasuusaha farxaddayda. Maxaa yeelay ma aqaan sababta, balse waan ku jeclahay. Ma ihi qof daciif ah, ka caliso. Adiga ah awooddayda inta aad adiga tahay jacaylkayga. Ma jiro wax dunida dusheeda yaallo oo i ruxi kara ama i gilgili kara. Waan ku jeclahay.